waxaan soo noqonaynaa markaa dhismaha Puntland iyo shirarkii muhiimka ahaa ee ka dhacay magaalada Garowe markii dambana horseeday in ay dhalato 98 dawladda Puntland shirarka nolol waay cabd faraxow dad badan oo waxaan arkaa shirarkaas ka hadlaya oo aan sida ahayd uga hadlayno waxaan kuu sheegayaa shirkaas wada tashiga 45 barisoolay waxaa ku shiray dadka ku nool gobolada waqooyi bari mudug nugaal iyo bari ergo ilaa dhowr boqol bay ahaayeen waxaa xusud mudan magaalada hotel malayn hotel nugaal iyo bushaara ku yaalay waxa weeye dadkii baa la dejiyey dhaqaale ma jiro guddiga fulinta SSDF baan ku jiray aniga iyo barkad cali saalax baa xoogaa dhaqaale oo dekada laga helay waxaan ku soo qaadnay container meel lagu aaminaa la waayay man dakhala beeta oo Sufyaan fahuwa aamin baan guriga islaamkaan hortagay wili containerku waa yaala jaalaha gurigii hore islaamka containerka hor yaal way baa dhaqaale ugu horay markii dambana halkaas wixii la soo helay magaalada laga soo aruuriyo la waxaan jiray reer Garowe waxay ka bixeen guryahooda waxaan aaminsanahay caruur badan inay ku baaqatay sababta xaasaska baadiyaha loo diray guryihii magaaladuna waa yareed waxaa la dejiyey dadka ergooyinkii la dejiyey dadka reer Garowe waxay go'aansadeen iyagu masaajidada iyo darbiyada inay seexdaan laakiin martidu ay hoy helaan waxa la sameeyay meelo wax laga cuno waxa kamid ah makhaayad la dhigi jiray muusadiiba 500 qof cuni jirtay lama qoro waa tagaysaa ergey baan ahay kaar baad wataa waa cunaysaa waxaan doorka ugu weyn shirkaas anigu ammaantiisa aan siinayaa labada isim oo nugaaleed shirkii hore marka shirkii hore waxaa lagu magacaabay shirka wada tashiga gudoomiyaha waxaa ka ahaa Suldaan Siciid Suldaan Garaase co-chairman waxaa lahaa Abshir Muuse Allah uu naxariistay oo ahaa gudoomiyaha ku-xigeenkii jabhadda SSDF ee koowaad oo janabka ku xigay markii xoogaa khilaaf soo yaraaday shirkaas muddo socday hal isku maago hal la waxeeyo wixii la doono hal la isdho hal la wada hadlo afar qodob oo waaweyn baa ka soo baxay waxaa la heshiisiyey siyaasiyiintii iskhilaafsaneed baa ku heshiiyey raggii rajiimkii lagu tumeeyey iyo raggii adigu alla soo xabadgashatay oo bannaanka ka yimid halkaasaa lagu heshiiyey waa qodob waxaa lagu xaliyey khilaafkii dhaqanka oo ka dhexeeyey boqortooyada daarood oo isku hayeen labada nin oo walaalo ah subaxdii qolada reer boqor casara u hadlay casara waa xasuustaa dad nool ee imaaraad ku jooga wuxuu yiri boqor waa maxamuud cabdullaahina waa waliil ahli meesha laga dhawaaqay kinko meesha laga dhawaaqay waa laba heshiis oo aad u waaweyn waxa qodobka saddexaad oo lagu gaaray halka ahayd sool iyo sanaag in la casumo way ka soo qayb galaan iyo waqooyiga gudguduud oo aan ula jeedo mareexaan oo halka ilaa Puntland la gaarsiiyo oo kontinent daba ergey la siiyey sool iyo sanaag in la casumo waxay ahayd qodobka saddexaad oo shirka la isku raacay qodobka afraad wuxuu ahaa in la dhiso Puntland afarta qodob oo waaweyn baa ka soo baxay nimankii waqooyiga galguduud waxaa yimid 17 November dhaca hotelkaas nugaal baa la dejiyey waa xasuustaa anaa subax lacag igu soo dhiibay u geeyey waxay dhaheen tashi baan ku noqonaynaa nagumana aysan soo noqon min dhaafaro arrimo kale iyo kismaayo iyo waxaasaa jiray shirka marka haddaan kuu soo koobo wuxuu ahaa heshiis siyaasiyiinta heshiiskii dhaqanka boqortooyada daarood casumaadii sool iyo sanaag iyo buuhoodle oo ajiibay oo isimadoodii iyo ergooyinkoodii si xun oo si weyn uga soo qayb galeen go'aan qaadashadii in loo gudbo shirweynaha axdi qaraameedka oo lagu dhisay dowladda Puntland waana hirgaleen ilaah baana hirgeliyey laakiin dada konton afraad baa shirka lagu qabanayay konton afraad baa shirka lagu qabanayay gaadiid ma jirin halkaas la lugeynaya dad kooban Cabdullaahi Yuusuf islaanka dad kooban baa baabuur lagu geen jiray xaajiga maxamed abshirayo halkaas la durdurin jiray waxaan xasuustaa habeen baa la gaari jiray habeen shirka laga soo baxay gudcur ay ahayd odayaal baa gud ku dhacay waxaa ka mid ah maxamed Jaqanaf aabihi Siciid Jaqanaf lug buu ka jabay godka markuu ku dhacay dushaan ku soo qaadan oo isbitaalka Garowe ku keen oo ku kaban ma garatay committed bay ahaayeen dadku in wax la qabto shirka hore saasu ku dhacay
shir guddoonkuna wuxuu ahaa suldaan siciid waxaa loo gudbay shirkii weynaa waxaa shir guddoomiye ahaa allah u naxariistay islaan maxamed oo aan la'aantiis wax hirgelin lahaa jirin koojeerna waxa uu ahaa goonle shirkaasina muddadu socday dee waa haysaa axad qarameedkaa lagu sameeyey ergadaa waxay dooratay madaxweynaha iyo ku-xigeenka markii madaxweynaha iyo ku-xigeenka habeenkiina waxaa lagu jiri jiray oo madaxweynuhu deganaa guriga xasan abshir waan markaa dabaq ahayn halkaas habeenkii lagu jiri jiray lagu kala warqaadan jiray madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenkii baa la doortay reer sool waa yimaadeen iyo reer sanaag waa yimaadeen madaxweyne ku-xigeenku waa reer sool dooda markaa halkaas markay yimaadeen reer sool iyo reer sanaag ay yimaadeen sida bay dood u ahayd doodu iyo tartankii ka dhacayay nimanka dadka madaxda meesha ku tartamayay aan ku warramo doodu waxay ahayd shirku sida uu u socdo anugu raggii waxaan ku jiray wadnaha farta ku hayay sidii qardhaama fashilantaan laakiin markii sool iyo sanaag yimaadeen shakigaasi waa baxay waxaad mooddaa shirkiiba inay iyagu maana balodgareeyeen intay soo istaagaan bay ku leeyihin madaxweyne waa noo muuqdaa iyadaan doorasho la gaarin cabdullaahi miyay ujeedaan cabdullaahi ujeedaan taasi waxay keentay in rag guddoomiyihii s s d f ka mid yahay ay shirka maalmihii laastiga ahaa ka baxaan boqorkiinka oo ka mid yahay allah naxariistee allah xaaji maxaa abshir rag badan oo la socday siyaasiyiin u badan reer qardhood in shirka laga baxo doorashadii baa dhacday cabdullaahi wuxuu qaatay unanimous buu ku qaatay caqlabiyadu seefta bannaanka oo buuxinahaa cabdullaahi isma u sharaxin axad qarameedka waxaa qabay qofku waana is sharixi karaa waan la sharixi karaa cabdullaahi warqadiisa sharaxaadda waxaa sharaxay aniga iyo nin la dhaho cabdullaahi xirsi ilka yara oo xildhibaan noqday oo hadda isugu dan jira oo baarlamaanka ugu horreeye baa sharaxnay odagana dee waa iska qaadanaya wixiisoo maaqaan 470 beeheedo 400 intaa maaqan 3 cod baan dooran ku-xigeen yaa u tartamay ku-xigeen waxaa u tartamay rag badan waxaa ka mid ah maxamed cabdixaashi ku guulaystay yaasiin tamaad iyo ninka la dhaho axmed cabdixaabsade aakhirkii waxaa isu soo haray yaasiin tamaad iyo maxamed cabdixaashi maxamed cabdixaashaa guulaystay halkaa markii arrintu marayso oo madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenka soo baxeen waxaa la qaybiyey baarlamaankii waxaa la go'aansaday in la sameeyo baarlamaan 69 waxaa lagu qaybsaday gobollada saddexna maadaama puntland ay dhisteen 3 jabhadood waxaa loo gartay 3 guddoomiye 3 jabhadood oo kale ahaa SSDF USB iyo SNDU waxaa kala hogaaminayay generaal abshir ninka la dhaho maxamed cabdixaashi iyo cali ismaaciil cabdigiir sidii 3 qof la gobol lama siin 3 xubnood 3 nin oo specifica baa la siiyey oo ku qaatay magaca chairman-nimada jabhada 3 maxamed waa ka shirka ka tegey cali ismaaciilna fulintuu gala maxamed cabdixaashina fulintuu gala sidaasaa 66 lagu qaybsaday shirkii muxuu ahaa gobollo loogu qaybsado oo ah 5 gobol iyo buuqol sool sanaag bari nugaal mudug 5 gobol iyo degmada buuqoodan sool iyo degmada buuqooda 15 cod bay lahaayeen 11 codna waxaa lahaa sanaag 11na waxaa lahaa nugaal intii aan qaybtu dhicin baa waxay cabasha ka timid bari iyo sanaag islaan maxamed decision maker buu ahaa nin go'aan qaato ah 2 xubnoodoo nugaal leedahay buu ka qaaday oo midna bari ku 22 uga dhigay midna wuxuu ku daray sanaag sababtoo sanaag baa waxaa yimid khilaaf dhahaya dhulbahanta waxbaan ku leenahay waana run hadda 9 xubnoodna waa warsangeli 2 xubnoodna waa dhulbahanta sidaasaa 66 lagu soo dhisay waxaa la magacaabay guddiga xalinta khilaafaadka oo guddoomiye ka ahaa muuse islaam oo gobolka ku shirayey oo baarlamaanka la isku haysta kala saaray xoog hayna uu ka ahaa maxaa kulankan hadda ah wasiiru dowlaha arrimaha gudaha federaalkana jiray baarlamaankii baa la dhisay baarlamaanku waxay doorteen guddoonkoodii oo guddoomiye ka noqday ambassador yuusuf siciid guddoomiye ku-xigeenka koowaadna waxaa noqday kulan guddoomiye ku-xigeenka labaadna waxaa noqday allah u naxariistay xasan daahir afquraan after that cabdullaahi yuusuf wuxuu dhisay dowlad kooban oo 9 wasiir buu dhisay
sagaalkaas waxaan u malaynayaa 4 baa dhimatay 5 waa inoo shaqay maxay kala ahayn waxaa ka mid ah Sheekh Cali Nuur oo ahaa wasiirka cadaaladda Brimo Portfolio xasan Ashir Faarax oo ahaa wasiirka arrimaha gudaha Siciid Cabduur oo ahaa wasiirka maaliyadda Cali Ismaaciil oo ahaa ganacsiga iyo warshadaha xaabsade oo ahaa howlaha guud Dr. Yaasiin Faarax Catan oo ahaa arrimaha bulshada Maxamed Xuseen Jaasar nin la jiro ahaa wasiirka dekedaha Xuseen Ismaaciil oo ahaa wasiirka xanaanada xoolaha oo safarkii ugu horeeyay Cabdullaahi intuu London u raacay London uga haray iyo Allah u naxariistay Cawad Cashar oo ahaa wasiirka warfaafinta decreeta number 2 baa la dhahaa sagaalka wasiir baa la magacaabay wasiir ku xigeen iyo wasiir dawlad ma jirin decreetadii labaad oo madaxweynuhu uu soo saaray wuxuu ku magacaabay taliyaha ciidanka booliiska iyo taliyaha ciidanka daraawiishta yaa kala noqday Cabdullaahi Ciise inta booliisku nool salmadhiga isbarijanin la dhaho Allah u naxariisteena taliyaha ciidanka daraawiishta yaa loo magacaabay decreetadii ku xigtay wuxuu magacaabay hanti dowlaha guud iyo gobornor of bank gudoomiyaha bangiga waxaa loo magacaabay Golne hanti dowlaha guudna waxaa loo magacaabay nin dhintay oo la dhihi jiray Yuusuf Macalin ragii xisbigana ahaa maalinkii dambena wixii sii dayay agaasimayaashii guud oo anigu aan ka mid ahay waxaa xusid mudan intaan taagin agaasimayaashii guud baarlamaankii markii la dhisay 5 xubnood baa dumar ah oo ahayd go'aan isimada in 5 gobol mid walba gabari ku jido waxa ka mid ah cashageen la mudug bay ka soo gashay seenabi waa siyaasiyiinna bari bay ka soo gashay shukri salaad way dhaxna nugaal bay ka soo gashay sahra xamari gabar dhig jiro dhimatana sool bay ka soo gashay gabar buraanburi jidho jooqa la dhahana sanaag bay ka soo gasho way dhimatay Allah u naxariisto maantana xubin bay sii marayaan walax loo kordhiyay iska dhaaf dib u dhac baa ka muuqda kadib agaasimayaashii guud baa la magacaabay aniga waxaa la magacaabay agaasimihii guud ugu horeeyay wasaaradda caafimaadka oo la isku dhaho arrimaha bulshada yaasiin baa wasiirna Abdulqaasim la dhaho dhintay Allah u naxariisto waxaa loo magacaabay agaasimaha guud waxbarashada qaybta waxbarashada Ali Hayaan ee guddoonka waxbarashada aba qolka aan ka bilownay wasaaradda caafimaadka si magaaladu aad bay u yarayd isgaarsiin ma jirin maantana hadde meesha ay marayso ujeeda xagee ku shaqeynayseen Garowe waxay ahayd magaalo yar oo kooban oo aan facility dawladnimo oo weyn aysan lahayn dawladii waa la dhisay waana lagu soo qaxay waa la isugu yimid shirweynaha la martigeliyay sida u bilowdeen hawlaha wasaaradaha markii la magacaabay adigu markaa hadda ahayd agaasimihii ugu horeeyay aan ku sheego horta waa run Garowe way yarayd madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka wada deganaayeen guriga xasan Ashir bedeganaay inta aan labadii guri gumartooraha iyo BC-ga aan dadka laga saarin halkaas ay wada deganaayeen dugsi uu dhisay Islamic Bank oo toga markii laga gudbay isbitaalka u dhow wasaaradaha baa ku shaqeyn jiray aysan ku jirin wasaaradda arrimaha bulshada iyaga waxaa hoostigareeyay oo meeladajiya ama caafimaad ha ahaadeen oo markaa kaliya aan magacawnahay ama waxbarasho ha ahaadeen guddoonka waxbarashada gobolka Nugaal oo Cali Hayaan waxaa halkaa laga dhigay xafiiska madaxweyne ku xigeenka agaasimaha guud madaxtooyada Ismaaciil iyo qolol ay sheergareeyaan wasiirada inta kale wata halkaas laga bilaabay waxaan xasuustaa kuraasta iyo miisaska guryaha reer Garowe laga soo qaaday ma jirin meel kuraas laga gatay miisas qaarna wasiirada caag bay ku fadhiisan jireen kuraas caag oo maqaayad musaddiiba iyo laga qaaday laakiin badanaa waxaa lagu farnitigareeyay 7 qol inay baan u maleynayaa guryaha reer Garowe qalab laga soo qaaday halkaas laga bilaabay dawladnimo maxaa ugu waaweynaa oo dawladdu markaa ay saartay mudnaanta dawladdu cabinetka ugu horeeyay oo la dhisay in la hawlgalay noqotay markaa adeeg iyo waxaas yaamay baa jiray maxaa ugu waaweynaa oo ahaa markaa mudnaanta dawladnimada ku dhaqaaqay dawladdu waxay ku dhawaaqday markii ugu horeysay amniga inay sugto from Gaalkacyo to Boosaaso 170 isbaaraa taallay 3 weeks bay markii taliyaha booliiska la magacaabay lagu soo afjaray xabadina kama dhicin ciidankii meelaha joogay waa la qalameeyay ciidan booliis baa laga dhigay iyo ciidankii daraawiishta ahmiyadda koowaad waxay ahayd in amniga la sugo jidkana la furo ahmiyadda labaad waxay ahayd in la isku tashado waxaa la cunayay oo lagu noolaa deyn reer Garowe leeyihiin iyo deeqba Garowe baa deyn iyo deeq labadaba laga qalbi dawlad iyo shisheeye iyo cidna caawinaysana ma aysan jirin على سفر كي هو مدحوينه ليبيا وقتله
بالدقيق $2 مليون هذا الصهر تاسع وحلا وكل فرفور وحال حوق الله صاري برلمانك وحوها برلمانك وفعنا أنا وأنت نجوي بنتنا صومر إن الشرعية للصمية إن بولس للصمية حتى نول بدحدو إسكحري تدود أردية إسلام كساس أوري يا مير والبا ما قرأتي ما أنت نوارت إنستيوشن إسكية واحد يسموت وحاجة dhinac marka laga eego 8 sano oo lagu socday geedi socodka in wax la dhiso halganka adag la soo maray oo aakhirkii ku soo gabagaboobay in wixii khilaaf ahaa meel la iska dhigo oo ay ku heshiyaan garabyadii dhaqanka iyo garabyadii siyaasiyiinta iyo SSDFT hore iyo tii cusba oo wadada cusub la qaado oo maamulka la dhiso saldhig waxa uu ahaa in la dhiso marka maamul dadkaani adeeg iyo amni iyo howlaha ku xiro haddana meesha waxa ku jiray in mar walba la daba joogo oo la raadiyo dawlad Soomaaliyeed labadii hadaf ugu waaweynaa ay ahayd oo meesha ka soo baxay marka arrintaas dareenkaas doodaas sida bay ahayd doodaas waa weyn reer Puntland horta mid bay heshiis ku ahaayeen siyaasiyiintii gudoomiyaha SSDF iyo boqorkiin koon iyo Allah u naxariista labadaba waati shirka ka biyay qardhaa la tagay buuq siyaasadeed baa furmay waxa soo abtiray Islaan Maxamed oo BBC da ka hadlay wixii doorashadaas in cadaalad u dhacday ilaahayna ana la hortagay ana joogay haddaan horta islaamku meesha jirin wax badan baa fashilmi lahaa BBC ka hadlay shir jaraa'id buu qabtay ba iyaga soo wareystay markii kuwaas hadleen waa xirantay arrintaas waxa reer Puntland gudaha dibad bal isku raacay marka dawladda la shaqeeyo waxaa jiray federaalka iyo raadin dawlad Soomaaliyeed waxay hadafka loo dhisay Puntland principalka Puntland loo dhisay waxay wahayd 8 sanaan Soomaali sugayni Islaan Maxamed wuxuu lahaa hadal hays khudbadda wuxuu ku furay still waxa xasuustaan waxaynu dhisanaynaa dawlad yar waxayna inoo gudbinaysaa dawlad weyn haddaynu dawlad weyn helnaa dad baynu noqonaynaa saddexda da buu isticmaali jiray ma garatay waxaan ka nood gareeyay xaajo iyo waxaasna Allah noo fududeeyo ducadiisa ahayd iyo waxaynu dhisanaynaa dawlad yar waxayna geynaysaa dawlad weyn haddaan dawlad weyn helnaa waxaynu noqonaynaa dad haddaan dawlad lahayna dad ma tihi horta dee hadafka islaamka oo shirka gudoominaya uu saa u dhaqmayay waxay ahayd islaamku wuxuu ka hadlayay waxa reer Puntland ku jira wixii naloo geystay iyo wixii dhacay reer Puntland waxa kala weynaa Soomaaliya shirki carteen dawladda Puntland waa diiday inay ka qaybgasho official golaha wasiirada fariistay go'aan bay gaareen islaamka ayaa Ismaaciil Cumar Geelle casuum islaamku mudulka lagu shir jiray meesha ana tagayay haddaan arko dawlad Soomaaliyeed in ay ka dhismayso inta ay yimaadaan diyaaradda ku guray haddii kale ana inay iimaanay in la joogo wuu tagay una soo noqdo ma garat xoolo wixina wata wixina wata hagaagsada haddaa wax hagaagsataan dad baad noqonaysaan bi dawlad Soomaaliyeedna waa imaanaysaa waxaa jiray dad badan oo hadda islaamka aad uga hadashay dad badan oo wax ku ool ah oo xilliga khatarta lahaa ka soo saaray gobolkan hadday ahaadeen hoggaan dhaqan iyo hadday ahaadeen hoggaan siyaasadeed labadaba maxaad ka xusi kartaa dadkii kaalinta firfircoon qaatay kasakow Islaan Maxamed waxa ka mid ah anigu islaamka hadda horta waxaan aad ugu xuseeyaa wuxuu ahaa ninka martida loo yahay isagii Suldaan Siciid baa martida loo ahaa shirkii hore Suldaan Siciid baa waday kana isaga waday kana waa wada joogay ismada ka mid ah وسياسيين وعبد الرحمن اللهم حرست المكين اسمه حسوست بلداتش علي فارح بلداتش أحمد محمد بلداتش ياسين البري وبلداتش عليها ونيكي صور البرية عاصمة الجرو وعلي اسمه وحي هاي مرتشع صالوت الجري حسن فديه ووحي الاسكو خلافه قوية ونتشير قريني إسلامكم waxaa jiray active reer garow weliba dumarka active door aan la ilaawi karin baa ka mid waxaa ka mid anigu siyaasiyiin ma qiimeynaayo waxaan qiimeynaya dadka magaalada baan qiimeynaya waxaan qiimeynayaa isimadii sool iyo sanaa ka yimi dadka wax qorayay anigu hadda waxaan ahaa gudoomiye xoog haynta shirkii wada tashiga
dad badan oo input badan gashay aadan jaacan bixi baa ka mid ahaa maxamed abshir walde oo allaha u naxariistay talooyin badan bixinayay baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa xaabsadaan odaga jaakada jooga xaaskiisaa ka mid ahayd deeqo dad badan ma soo xisaabi karo laakiin infact dowladda la dhisay dad badan aan dowladda ka mid noqon baa kaga juhdi badnaa in wuxuu hirgalaan وحاجة دكتور عبد الرحمن دقويني مركا حلكة كوجد دحي وحوها وحنقتي وسيركي مدحتويدا مركي اللي هالشيء طبعا نوع حنقتي وسيركي عافمات بنتلان دولدي حد موسى وحتى هينك مركي وهريسي وسارد عافمات بورت دولد أخرى ويضع عن بورت عدين الدقين كدسي حرنت عافمات بورت كدسي حدنا بورت هينقتي حرنت الدولد يمش أقول بلعبة ونكسن maxaa fikirka inaad buurta degtid oo ku salaysana mashruuca waa helay waan qortay ilaah baa nagu guuleeyay UN-ka baa naga waxeeyay laba hay-adood ilaa annaga waxay ahayd infrastructure-ka hay-adaha dowladda in la dhiso caafimaadka iyo qorsheynta baa helay wasiirkii qorsheyntu xoogaal ma ahayn anigu xoogaal baa December 15 December 1998 baa galab dadka loo yeeray islaamkii cabdullaahi yusuf baa horkacay islaamka wixii taa mawjada baa government soo oday wax ogaa khuurada ogaa baan ahay moogta anigu dhulka ma calaamadin dhul garowna ma bixin karo wax la duuba waa la qoray warqadii baa la saxiixay waxaan qaatay koobi every document koobi baa ka qaadanaya moogta mashruuca markaan helay baan u tegey madaxweynaha waxay wasaaradda baa dhisaya hagee ka dhisaysaa laba dabaqa halkaa وهالكاسي كنت هساقل ما يدوكا ولا بحشي قالوا لنو تشوكتا وإسلام كنا بحشي عبد الله هنا قدوني ساسي كنا قلتي ماشي يقولوا رئيسي وحدي وانا كرامانا وهذه عالمي لك حدي قيدك الصغير قال سلطان سعيد عبد الحسيو برصاب كاها نينك رجع قوشي السلامة قرية مربع ويلا الغيرين ويلاشين كرباش بكلاد داري وحين نقطة سرتي وهو رئيسي الدولة هالكا لغادي السكد وندم إن شاء الله لا مدحتو يدي فوجودي لكن anigu fulintaan lahaay fikirka waxa lahaa ninkii baxsiyay ninkii gudoomiye ma sha Allah saasho ugu dameysa Dr. Cabdiraxmaan waxa weeye waxa laga joogaa 12 sano ku dhawaad maalinta qabtu dhacday ee diyaaradda halkaan aad ku timi 8 sano sugitaanka ahaa iyo 12 sano ku dhawaad Puntland ay dhisan tahay dib u milicso meeshii laga yimi iyo waxa la joogo maxaa ku muuqda waxa ii muuqda alxamdulilah rabbil caalamiin meeshii laga tegey ee maanta meesha la marayo iyo guud ahaan Puntland iyo Garowe sida ay tahay iyo waxa socda iyo laamiyada waa hawsha ku timi qori isu dhiibka adigoo wasiirka waxbarashada aad ka ahay oo rag kala wareegtay ragna ku wareegsay anigu aan wasiirada ka ahaa asaa ma hadda kooda waxa iska ilaahay ma hadda labaadna waxa iska leh reer Puntland oo isku tashaday waxa ii muuqda marka hal walwaa hayaa waxa xaajani maan ogeyn baa indhaha ka rida dadaan ogeyn hawshan wixii loo soo maray iyo rag dhiig u daacay oo dibta u soo maray iyo gabdhahan seexan iyo dumarka guryahoodii ka baxay oo intay dibadda nooga yimaadaan boob hantiyeed ku jira iyo ka anuu hebel dhihi maayo ama gudaha ka soo baxa oo dhahaya boob hantiyeed 7 sano wasiir ahaa 4 sano agaasimo guud baan 4 sano hay'ad madax bannaan almost 20 sano madax bannaan hal qolo ku mali wadanka ma garatay ama gudaha ka yimaadeen ama dibadda ka yimaadeen waxa kaliya oo aan walwal ku haya waa systemka corruption oo socda laakiin meel baa laga yimid meel baa la tagay ilaahu meel ka weyn nagi dareen waxa muuqda marka aad dhisayseen Puntland dhisayseen tabarucayseen gabdhuhu joodarigooda dhiibayeen stiliskooda gadayeen madaka maqaaxida leh ay maqaaxidooda furayeen oo dadku ay wax bixinayeen maanta waxa muuqata maxaa aniga igu jira dareen waxa muuqda dadku hanti ay raadinayaan oo aad u dheer kaas waa walaalku qabta walaalkan ka qaba kaas weey laakiin waxa way suxun bay u dhimanayaan wixii ummadan ogaa laba qadiyadood markaan soo xasuusto waa jira qodob difaaci gudub dadku sida isku mabda u ahaa iyo dhismihii Puntland dadku sida isku mabda u ahaa oo looga mideysnaa ninkii damca inuu khiyaamo ilaahayna waa u jeedaa subxaanahu wa ta'aala